garoonka badeed waxa loo soo galo waa guul darro iyo barbaro. Halkan waxa ka dhacay mid ka mid ah kulamadii ugu adkaa ee tartanka horyaalka heerka koowaad ee Jubbaland. Kooxaha kubadda cagta Samgoal iyo JBC ayaa ku wada ciyaaray mid ka mid ah kulamada horyaalka heerka koowaad. Kulankan waxa uu kama dambaysta tartankii muddada dheer soconayay. Si la mid ah labadan kooxood waxa maamula hal ganacsade, waxaana mulkiyadooda iskale hal ganacsade. kulanka galabta dhacay waxyaabaha xiisaha gaarka u yeelay waxaa ka mid ah xifaaltanka u dhaxeeya labada kooxood oo aad u xooganaa. labada kooxood marka laga hadlayo dhanka xaafadaha waa laba kooxood oo cadowdaris ah si weyn ugu xifaaltama tartanka horyaalka heerka koowaad. Samgoal dhawaanaya soo qaaday horyaalka heerka labaad ee Serie B da loo yaqaano. sanadkana waxa ay timid kama dambaysta tartanka horyaalka heerka koowaad. waa natiijo weyn oo filan waa marka laga hadlayo dhanka kubadda cagta, maadaama ay kooxdan samaysay dadaal badan oo xoogan una muuqatay koox ku harjadaysa inay ugu yaraan guul loo hooyato. halka JBC ay sanadkan qaaday horyaalka heerka koowaad ee Jubbaland marka laga hadlayo sanadkii hore ee dhamaaday, waxay qorsheynaysaa in sanadkan markale wada xiriir ay qaado. waxaa jirtay fursad labadan ka madax bannaan oo marka laga hadlayo kooxaha kale u bannaaneyd sida naadiga Dekedaha oo tartankan kaalinta saddexaad iyadoo eeganaysay. Dekedaha waxay sanadkan bannaanka ka qaadatay tartanka horyaalka heerka koowaad ee Jubbaland kadib markii ay labadan kooxood garba siman ama barbara ay wada galeen. Dekedaha ayaa sidaa awgeed ku guuleysatay natiijada ciyaarta ee ka dhacday galabta garoonka Wamo. Macallin Axmed Deeq iyo ciyaartoydiisa ayaana natiijadan ay filan waa ku noqotay markii laba kooxood oo maamulkooda uu hal yahay ay ku heshiin waayeen in ugu yaraan ay libinta ku midoobaan. JBC waxay diiday in ay ugu yaraan siiso fursad guul ah kooxda kubadda cagta Samgoal, halka dhigeeda Samgoalna ay diiday in ay siiso fursadda libinta kooxda kubadda cagta ee JBC. labada kooxood fursadaha ay isku diideen waxaa si waafi uga faa'iideystay naadiga Dekedaha oo sanadkan bandhig wanaagsan samaysay bilowga ugu horreeyay ee horyaalka. arrintan ayaana ahayd mid dabcan aan laga filanaynin intii aysan ciyaartu bilaaban ka hor, maadaama labada kooxood si weyn magaalada looga hadalhayay in ay dhici karaan waxyaabo aan suurtagal ahayn kubadda cagta, laakiin waxaa isha lagu hayay natiijada garoonka ka dhalan doonta. daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta labada kooxood waxay beeldareeyeen fursado waaweyn oo dahabi ahaa. JBC waxay heshay ku dhawaad 4 fursadood oo goolo loo filin karay kadib markii ay soo qaaday weeraro cir iyo dhula, kuwaas oo ugu yaraan muujinaya inay yihiin fursadaha dahabiga ee guulasha horseedi kara. Samgoal waxay heshay 2 fursadood oo qaybtii ugu dambeysay ciyaarta loo filan karay inay tahay tii guusha dhalin lahayd, sababtuna waxay ahayd garbaha iyo dhexda oo isku xirnaan badan muujinayay 3 daqiiqo ciyaarta ugu dambeysay. ugu dambeyn waxaa dhashay buuq la xiriira labada kooxood iyo sidoo kale dabcan maamulka oo mid ahaa. arrintaas ayaa keentay in ciyaarta ay isku qabsadaan in sidan si ka duwan ay wax u dhacaan, laakiinse waxaa soo kala dhex galay maamulka ururka kubadda cagta Jubbaland oo diiday in labada kooxood ay garoonka isaga baxaan. kooxda kubadda cagta JBC ayaa laga diiday gool garab dhaaf ah oo markaasi qaybtii ugu dambeysay ciyaarta, waxayna ahayd wixii keenay buuqii ugu badnaa ee gudaha garoonka ka dhaca. saxmadda iyo culayska ugu weyn garoonka waxa uu ka imanayay bannaanka marka laga soo tago ciyaartoyda oo xifaaltan adag muujinayay. JBC waxay gebi ahaanba ku fashilantay qaybtii labaad inay qaado qorshayaal weeraro qorshaysan oo guulal keeni karay, maadaama khadka dhexe iyo garbaha kooxda kubadda cagta Samgoal ay si weyn isugu xirnaayeen. Samgoal sanadkan waxay ka timid horyaalka heerka labaad ee Jubbaland, sanadkanna waxa ay taagan tahay tartanka kama dambaysta horyaalka heerka koowaad. waa dadaal badan oo filan waa in halka ay ku soo gaadho waqti kooban. macalinka iyo ciyaartoyda isku xirnaantooda ayay tani muujinaysaa. waa fursad dahabi haddii tan dhici lahayd oo ay aan lahayd in labadii sano ugu dambeysay ay 2 tartan oo kala duwan si kadiisa u kala qaado. JBC sidoo kale waxay soo qaaday tartanka horyaalka heerka koowaad sanadkii hore, sanadkanna kan ay qorsheynaysay qaadistiisa. labada kooxood fursadda caawa way seegtay oo waxaa muuqanaysa in mulkiilaha labada kooxood caawa aan wax kooba loo geyn doonin. natiijada ciyaartuna aad uma farxad gelin doonto maadaama ay si uun ku heshiin waayeen. wadahadallo badan oo garoonka gudihiisa iyo bannaankiisa ka socdayba waa natiijo ama aysan keenin. arrintanna Dekedaha ayaa guul weyn u ahayd. ugu dambeyn tartanka ayaa ku soo dhammaaday 3-3 oo barbaro ah. Samgoal 3 iyo sidoo kale JBC 3. waxaana u moodaa in la aqbalay ducadii macalinka iyo naadiga Dekedaha oo dabcan iyagu markaasi ay tan filay waa ku ahayd in laba kooxood oo mulkiyadeeda oo hal shakhsi leeyahay ay isku afgaran waayaan in koobka gurigooda la geeyo. waa arrin ugub ku ah dabcan ayna la gaartay kubadda cagta oo kaliya. Soomaalidu waxay tiraahdaa qaadis iyo jeedis waa isla gurigeyn, laakiin taasi kama dhicin garoonka kubadda cagta ee Wamo. labada macallin ee labada kooxood ayaana ugu dambeyn natiijada ciyaarta waxba ka bedeli waayay. kulanka ayaana sidaa gabagabadii waxay ku soo dhamaatay barbaro 3-3. waxaana sidaa koobkii ku qaaday kooxda kubadda cagta Dekedaha oo dhawaan lagu shaaciyay beejka ururka kubadda cagta ee Jubbaland. warbixintan oo dabcan ay la socodsiinayaan The Sheikh Mediana waxa ay si dhow ula socdeen bilow ilaa dhamaad ciyaarta bilowgeeda ugu horreeyay.
warbixino kale ayaad ka daawateen warbaahintiina dhasheeg wixii kale oo ku soo kordha oo wararkan la xiriirana halkan ayaad kala socon doontaan.